السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مرلباد سو دوادا qof kasta oo rabo inuu ku barto luqadda Ingiriiska bilaash kaliya waxay ku xiran tahay inaad soo gasho YouTube-ka aanad ka degsato fiidiyoyada halkan ka duubno aniga magacaygu waxa weeyaan Cabdiqani Maxamuud Fani maanta cashirkeena koowaad waxa uu noqon doonaa insha Allah hadii Ilaahay idmo sentence structure intan cashirkeena koowaad u gelin waxaynu wax ka yartaaban doonaa grammarka waxa uu yahay what's the grammar oo su'aal qof kasta ay isweydiinayo aan garanaynin horena waa aqoon horena waxaan soo dhigayaan isweydiinayo markaas horta grammarka waxa weeyaan waa waxa qaabka u yeelaya hadda waxaan ku wada hadlayno waxaan ku hadlaynaa Soomaali ummadda Soomaaliyeed waxa ka shaqeeya Soomaaligaas markaan ka hadlayo wax dhacay waxaan maxay ahaydaan qaabka i yeelaya fududeynaya in la fahmo waxa dhacay inaan ka hadlayo waxa weeyaan grammarka weeyaan haddaan doonay wax dhacay wax dhici doona inaan ka hadlayo introduction sameynaya aan sameynaya saadaalin birta rabadii hadda leeyahay sentence-kaygaasi waxa uu noqon doonaa future yana future-kana waa qayb ka mid ah waxa ahaydaan grammarka yani grammarku warkaas waxa uu laga maarmaan u yahay waxaynu ku hadlayno oo waxa sababa in la fahmo intaas ku dhaaf grammarka daba cashirkeena maanta waxaan soo laabto maanta waxaan ka bilaabanaa yani basic ka bilaabanaa waxaan dhisaynaa sentence man dhisi doonaa insha Allah dadku wax ku hadlaan man dhisi doonaa insha Allah intaan cashirka u guda galin subscribe iyo share like comment inta waa niga codsanayna si aad noo dhiirigelisaan anaga si aad anigu u helno dayana motivational korna hanu si qaadno waxaan soo gelinay fiidiyada يعني في الفيديو سوق لنا يوتيوب لين هذا بقى أشكنا معناتها سؤال كلية إجابة نيكا في النساء يعني سؤال كلية نسوكوبنا وما حي sentence what is a sentence كم حوية هاي وسؤاله بهان نلقى جواب it is a question nearest to answer وسؤاله بهان نلقى جواب سما okay sentence كوحويان is a group of words a group of words وكلمات اسكو تغي that كواسي او make سمينيا complete meaning معنى دمسترن معنى دمسترن انا waxaan ku hadlayaa thousand of words كمانان word يعني كونان كلمات oo isku geeyay kadib aad wax ku fahmaysid wana dhameystiray markaas sentence waxaan oran karnaa waa kelmado isku tagay kuwaasi oo sameynaya macna dhameystiran tusaale hadan ka soo qaadano kaalay wax ka kooban tahay 6 xaraf ka kooban tahay 6 words 6 words contained wax ka kooban tahay 6 xaraf ka kooban tahay hadaba xarfahaas waa xarfo isku tagtagay waxayna sameeyeen kelmadda kaalay oo adigu had fahantay inaan ku yeerayo halkaas ku dhaafno hadaba sentence kasta waxa ka kooban yahay 3 ka kooban yahay every sentence must contain 3 parts the first part is subject تكوى محي والsubject the second part هو محي وverb the third part هو محي وobject ويا هذا بتكوى waxa weeyaan ma nari subject gu muxuu yahay subject is the doer of the action waa waxa ficilka sameeynaya qof ha ahaado dhagax ha ahaado buur ha ahaado yani waa waxa ficilka ku sameeynaya fahamkuna muxuu yahay waa ficilka la sameeyay weey ficilka la sameeyay laftarkiisa weey objectigu waa maxay objectigu waxa weeyaan waa ficilka ka helay ficilka yani ka lagu doo sameeyay ficilka tusaalahan soo qaadanaya waxa weeyaan he broke window isagu waxa uu jibiyay daaqad maxaa uu jibiyay daaqad buu jibiyay okay waxaan soo sheegnay sentence-ku ka kooban yahay 3 waxaan ka soo saarnaa
number 2 waxaan soo saarnaa subjectiga sentence-kana waa kee waxaan niri he oo isaga inoo noqonaya inuu yahay waxaan noqonayaa he buu noqonayaa soo he nugu noqonayaa waayo isaga ficilka sameynaya wada isagu waxa uu jabiyay daaqad isaga markaa ficilka sameynaya suma he haqa he waxa uu taagantahay oo pronoun qofka uu taagantahay ama cali haado ama umar haado luna rag buu taagantahay yana haween ma taagan on shiba la soo qaata wajala yana shiba la soo qaata ma jeclaan kare waxa soo qaata shiba yana haweenku raguna waa he markaas isagu waxa uu jabiyay daaqad isagu waxan heed waxa noqonaysaa isagana sameeyay ficilka markaas subject waxaan lagu do of the action of ficil sameeyay subject game waa he verb-kan waa maxay broke waxa la jabiyay break baka timday one of two broke waxa la jabiyay maxaa la jabiyay oo helaya ficilkan waxaan sheegnay in ficilka la helayo oo helayo object uu helayo object window daaqad baa la jabiyay markaas waxa helay in daaqadii baa heshay haddaba markaas sentence-kan waxa waa he broke window he waa subject of ficil sameeyay broke no ficilka la sameeyay waa jabintay receive-kiina maxaa yeelay object-kiina waxa weeyaan window waxa helay oo la jabiyay daaqad baa la jabiyay wadna sentence ashirkeena maanta intaas baan insha Allah hadii la haydo in kaliya waxaan ugu codsanaa subscribe like share and comment intaas waan ugu codsanaa dhiirigelinta wadankiina annagana waxa weeyaan kor u qaaditaanka iyo tayeenta fiidiyoyada wadna sentence